إسلام عجوزه وايله ayaa waxaa aragtay nabiga sallallahu alayhi wasallam oo halka marayo horteedu waxa yaala alaab culays badan ma qaadi karto waxa rabta alaab in loo qaado dhabarka loo saaro nabiga aragtay halka maraya alayhi salatu wasalaam wa hiya la ta'rifu annahu rasulullah mana garanaysa inuu rasuulka ilaahay yahay ma taqaano markaas ay ku tiri kaali wiilkaygi kaali alaabta dhabarka ii saar nabiga waayimi sallallahu alayhi wasallam alaabti ayuu xambaaray dhabarkeeda intuu saari lahay ma saarine dhabarkiisa barakada badneed ayuu saaray sallallahu alayhi wasallam way yaabtay naxariistaas oo kale wiligeed ma arkin waxay arkin jirtay dhalinyarada markay u yeerto alaabtan dhabarka ii saara haday ku tiraado alaabta way qaadayeen dhabarkeedii la u saarayeen laakiin maanta maxay aragtay alaabtii oo laga qaaday xageen ku geeyaa hooyo inteen ku geeyna alaabta way yaabtay markaasay tiri wallahi nin fiican baa tahay oo dabeecad fiican ilaahay siiyay anigana naak waayeel cajuuza ayaan ahay waan ku dardaarmayaa dardaarankayga dhigayso haye ii dardaaran waxay tiri maalmahan magaalada Makka waxaa soo baxay nin Muhammad la yiraahdo nabinimo sheeganooya waa beenlo iska ilaali kaas raacin markaasuu ku yiri ma ogid miya aniga qofka aan ahay Muhammad ka sheegaysid waa aniga Muhammad kala sheegay ma adiga oo la noogu digaayay oo lana dhahaayay Muhammad jaan la raacin Muhammad kala sheegay ma adiga sidaan u dabeecad fiican hawa aniga isla markii waxay tiri ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah way soo islaamtay maxay ku soo islaamtay nabiga dabeecad wanaagiisa alayhi salatu wasalaam rahmadiisa ku soo islaamtay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabiga sidaa ah ee u dabeecad wanaagsan miyuusan mutnayn inaan jeclaano